kulanti wacan daawadayaal halkani waa janalkeena halbeegga wararka waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo aad janalkan ka daawanaysaan. haddii aad nagu cusub tahay waxaanu kaa codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto muuqaalkan aad la wadaagto saaxiibada. waa hagaag daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya xilligan aanu idiin hayno waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo lagu soo qabtay howlgal ka dhacay koonfurta gobolka Mudug. mid ka mid ah saraakiisha dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan oo isku soo dhiibay ciidanka dowladda. sidoo kale waxaanu idiin soo gudbin doonaa oo aad daawan doontaan mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo sheegay inay ku biirayaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolada dhexe ee Soomaaliya. waa hagaag daawadayaal ugu horreyntii haddii aynu ku bilaawno sarkaal ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ayaa lagu qabtay howlgal ay ciidamada abaabulan ee deegaanka ay ka sameeyeen koonfurta gobolka Mudug. deegaanka howlgalka laga sameeyay ee lagu soo qabtay sarkaalkan Al-Shabaab ka tirsan ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka socday abaabulka duulaan ka dhan ah dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee ku sugan gobolka Mudug. shakhsiga la soo qabtay waxaa lagu magacaabaa Cabdi Shidane Culusow waxaana soo qabtay ciidan is-abaabulay oo dadka deegaanka ah sida aan xogaha ku helayno. Cabdi Shidane ayaa dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab waxa uu magacawnaa ama u qaabilsanaa dhanka isgaarsiinta deegaanada Qayacad iyo Camaara halkaas oo Al-Shabaab ay ku joogaan qaab dhuumaaleysi ah. ciidamada abaabulan oo dadka deegaanka ah saldhigooduna uu yahay deegaanka Bajaale ee dhaca koonfurta gobolka Mudug ayaa waxa ay ninkan ku soo qabteen howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen. saraakiisha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug oo lagu wareejiyay ninkan la soo qabtay ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in ninkan uu qirtay in xilal kala duwan oo badan uu ka soo qabtay kooxda Al-Shabaab dhexdeeda isla markaana uu hadda ahaa madaxa isgaarsiinta kooxda ee deegaano dhowr ah oo dhaca koonfurta gobolka Mudug. sidoo kale wareysiga lala yeeshay sarkaalkan shabaabka ka tirsanaa waxa uu ku sheegay in uu ku dhashay oo deegaan ahaan uu ka soo jeedo magaalada Celeer ee gobolka Galgaduud ka tirsan. dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ayaa waxay wajahayaan kacdoon culus oo kaga imaanaya dadka deegaanka oo is-abaabulay waxaana ay garab ka helayaan dowladda federaalka Soomaaliya taasi oo markan ka faa'iideysanaysa kacdoonka shacab ee soconaya. waxaana maalmihii ugu dambeeyay Al-Shabaab lagala wareegay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolada Galgaduud, Hiiraan, Baay iyo qaybo ka mid ah gobolka Mudug. dhanka kalena sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidanka dowladda ee ka howlgala gobolka Hiiraan. sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab isla markaana watay gaari iyo qori ayaa waxa uu isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanka Yosoman ee dhaca gobolka Hiiraan. Cabdi Muumin Cilmi oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta 72aad oo ka howlgala deegaanada maamulka Hirshabelle oo wareysi siiyay idaacadda dowladda ee raadiyo Muqdisho ayaa waxa uu xaqiijiyay in ninkaas gaadiidka wata ee ka soo goostay Al-Shabaab in ay hadda gacanta ku hayaan. sarkaalkan ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in ninka isku soo dhiibay uu xubin sare ka ahaa Al-Shabaab dhexdooda balse ma uusan cadeynin xilka uu hayay. waxa uu sidoo kale sheegay in ninkan uu ka soo jeeday deegaanada howlgallada ay ka socdaan ee ka tirsan gobolka Hiiraan. mar la weydiiyey sida ay ka yeelayaan ninkan Al-Shabaab ka tirsan ee isku soo dhiibay ayaa waxa uu sheegay in ay u gacan gelinayaan dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya si ay u geyso goobaha dhaqan celinta ee loogu talagalay in la geeyo xubnaha Al-Shabaab iska soo dhiiba. deegaanka Yosoman ayaa waxa uu ka mid yahay goobaha ugu badan ay ka dhaceen dagaalada ugu culus ee lala galay Al-Shabaab waxaana halkaasi si ba'an ugula dagaalamay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab dadka deegaanka oo garab ka helaya ciidanka xoogga dalka. mid ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda oo la hadlay warbaahinta ayaa horaan waxa uu sheegay in howlgalladii isxigxigay ee ka dhacay deegaanka Yosoman ay ku dileen 100 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab iyadoo ugu dambeyntiina deegaankaas uu gacanta u galay ciidanka dowladda oo garab ka helaya kuwa deegaanka. ugu dambeyntiina saraakiisha xildhibaanada iyo wasiirada iyo waxgaradka beesha baadacadda oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay magaalada Muqdisho ku yeesheen kulan ay ku iclaamiyeen dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab kaasi oo ka bilaaban doona qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan oo ay beeshan degto. wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beene ayaa shir guddoon ka ahaa kulanka waxaana laga soo saaray go'aan ah in beeshu ay duulaan ku qaado dhulka ay Al-Shabaab ka haystaan sida deegaanada Jalalaqsi, Buurweyn iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Hiiraan. xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimow oo kulanka kadib saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab waayihii u dambeeyay ay dhibaato badan u geysteen beesha baadacadde isaga oo soo tiriyay dadkii ay waxyeeleeyeen beesha oo uu isagu ku jiro. Macalimow ayaa waxa uu yiri Al-Shabaab dhibaato ayay horay u soo gaarsiiyeen beeshayda sida dadkii ay nooga laayeen qaraxii Hotel Xayaat, saraakiil, odayaal iyo mas'uuliyiin ay naga dileen
aniga ahaanteyda qarax ayay igu soo weerareen maanta waxa ay beeshu go'aansatay in aan la dagaalanno kooxdaas ayuu yiri xildhibaanku. waxaa halkan kulan muhiima ku yeeshay siyaasiyiinta saraakiisha iyo xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa federaalka Soomaaliya kuwaasoo dhammaantood ka wada tirsan beesha Baadacadde. kulankan waxaa maanta ahmiyadiisa iyo ujeedkiisa uu ahaa in laga wada hadlo xoreynta deegaanada ay beeshu degto oo ah dhul ballaaran, dhulkaasna sidii loo xoreyn lahaa loo xoojin lahaa dhallinyarada bilaabay inay deegaankii ay howlgalaan oo ay la dagaalamaan oo ay iska bixiyaan cadowga al-shabaab. al-shabaab waa cadow, qof kasta oo Soomaaliya cadow ku ah, waa kansar. sidaa darteed maanta kulanka halkan la isugu yimid oo uu shir gudoominayay wasiirka wasiir Maxamuud Cabdiraxmaan Beene wasiirka qorsheynta Soomaaliya xildhibaanadu ay ka qayb galeen. waxaa lagaga hadlay sidii hawshaasi beesha loo dhaqaajin lahaa. al-shabaab waxay sheegtaan inay dad muslimiin ay yihiin, waa kuwa laynaya carruurta. waxaad ogtihiin wixii ka dhacay deegaankan dariska nahay Afariirdood, wixii ka dhacay carruurta lagu laayay maalin kasta ayay nabadoonadeen iyo u dambayso hadda ay laayeen. qof ay u aabayeelayaan ma laha. muslim waxaa la yidhaahdaa qofkii islaamka uu ka nabadgalo gacantiisa iyo yadiis maaragtay gacantiisa iyo maalkii labadaba afkiisa iyo gacantiisa. muslim waxaa la yidhaahdaa man salima almuslimuuna min lisaanihi, carabkiisa iyo yadihi gacantiisa ay ka nabadgalaan. labadaba lagama nabadgalayo. sidaa darteed waad ogtihiin dhibaatada ay horey u soo gaarsiiyeen beesha. waxay horey u dileen oo aad ogtihiin xayaad dhibaatada ay ka geysteen. shalay ugu dambeeyay doraad maaragtay nabadoonadii ay laayeen. horey waxay u dileen oo ay dhaawaceen oo maaragtay isbitaal yaallo weli Turkiga Generaal Maxamed Xaashi. waxaa ka sii horeysay maaragtay mid maaragtay inkaar qaba inuu aniga lafteyda isku kay qarxiyay ugu soo jarmaaday. waxaas oo dhan dadka beeshay ka tirsan yihiin. waxaas oo dhanna waxa sameynayay shabaab ay ahaayeen. maanta deegaanadeenniyaan u soconnaa, meeshaan tagaynaa. shabaabna waxaa ka go'an oo saraakiisha iyo ciidanka iyo beeshu ay isla qaateen inaan deegaanadeenna xoreysano. qofna weerar kuma nihin. deegaanadeennan tagaynaa waana ka xoreynaynaa insha Allahu tacaala. waxaan qayb ka noqonaynaa dadaalka dawladdu ay wado ee hormuudku ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh oo ra'iisul wasaaruhu uu garwadeen ka yahay. hawshaasaan rabnaa inaan qayb ka noqono. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa walaalaha deriskeenna ah ee beelaha ee horey u bilaabay halganka. waxaa kaloon ka codsanaynaa beelaha kale ee deriskeenna iyaguna maanta abaabulka wada inaan iska garabsanno sidii hiiraan oo xorna loo heli lahaa. waa dhul aad u fog. waxaan tegi doonaa Jallaqsi, waxaan tegi doonaa Buulo Barde, waxaan tegi doonaa inta u dhaxaysa Fiidow iyo Buurweyn ilaa iyo intii Jiiqley ugu dhow Beledweyne. intaas oo dhan dhulkaas aadka u dheer yaan maaragtay ka howlgeli doonaa. arrintaasaan isugu nimid, waana ku go'aansannay shabaab maanta in lala dagaalamo. qof kasta oo beesha ka midana waxaan ugu baaqaynaa inuu qayb ka qaato. waan ognahay dad badana maaragtay cabsi badan ay ku jirtaa. war doqon yaa lagaaga darin ay u daabyaraysataa. dadkaas bari adigay ku dili doonaan, walaalkaay dili doonaan, cid walbay naafayn doonaan. ummadda u istaagtay qaybaan ka nahay, waana soconaynaa. waxaanan weliba u hambalyaynaynaa dhallinyarada is abaabushay ee hawsha bilowday ee Buulo Barde tagay ee qaarkood Jallaqsi ka howlgalaya. arrintaasna waa xoojinaynaa waana taageeri doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. maalmihii ugu dambeeyay waxaa soconayay kacdoono ka dhan ah dhaqdhaqaaqa al-shabaab kaasi oo ay sameynayeen qaybo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed. waxaana dagaaladii ugu horreeyay kooxdan la galay beelaha Xawaadle iyo sidoo kale Saleebaan oo kala dega deegaanada maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug, kuwaas oo inta badan deegaanadooda kala wareegay dhaqdhaqaaqa al-shabaab, kuwaas oo in muddo ah ka ariminayay. guud ahaan daawadayaal waxaa halkaasi kusoo gabagabaynaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo aad kala socoteen janalkeena halbeegga wararka. inta aan barnaamij wareedkan kiisa xiga dib ugu kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. waxaanu kaa codsanaynaa haddii aad janalkan ku cusub tahay inaad subscribe inoo saarto, isla markaana muuqaalkan aad la wadaagto saaxiibada adigoo like saaraya. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.